adduunkan hadeertaan media iyo siyaasaddu waa isku xiran yihiin warbaahinta iyo siyaasaddu waa twin has isku xiran yihiin dadka siyaasiyiinta amarka waxay inta badan isku dayaan inay ra'yi caamka qabsadaan oo dadka ra'yi caamka wax lagu tartamayo oo dadka aragtidooda wax lagu tartamayo bulshada awal waxa jiri jiray wax la yiraahdo traditional media taqliidiya jiri jiray oo ah idaacadaha iyo telefishinada oo laga xukumo maalin waxa jirtay qofkii la yiraahdo BBC laga warsana oo aha qof maaragtay caalami ah oo dadka dhan ay qatar u arkaan inuu yahay in BBC waraysigu maanta laakiin qiimahaas ma jiro waxa keeno qiimo tira maxay tahay waxa soo baa waxa la yiraahdo warbaahinta bulshada oo dadka siyaasiyiinta iyo madaxda si toos ah ay shacabka iyo siyaasiyiin toos u wada xiriirayaan oo loo dhaxaynin oo media u dhaxeeya oo traditional oo san jirin taas marka waxay keentay dadka social media aad u faaleeya yaqaano waxay keentay wax la yiraahdo power of discourse and power of narrative xoog yeeshay dadka la hadalka iyo dadka gaarkooda iyo ina dadka nin siyaasadda tahay qof hadli kara oo dadka qanci kara oo wax gaarsiin kara oo wax u sheegi kara inaa tahay waa muhiim power of discourse yaa la yiraahdaa adduunka dadka ku soo caana maala ama haddana ku caana maalaba powerka kale maxaa waa power of narrative maxaa waa sheeka la sameeyna maanta oo dhan story la abuura ama dadkaas horjeeda ku abuure ama adaaba taada abuuranay narrative la yiraahdaa nimanka hada talada haysta marka power of discourse ma laha dadka inay hor yimaadaan ay qanciyaan karti uma laha laakiin maxay leeyihiin power of narrative isticmaalaan dadka inay leebalayaan waa social media waxa la abuuraa cayaan wax loo bixiyay baraha bulshada la abaabula Twitter-kayga maanta taan wax qoro boqol soo weeraraysa Facebook daan qoro kuna kugu jirta waxaasi khatar ku yihiin waa nimanka naga dhaadhici raba ayagoo ciidan Ethiopian wata inay dhahaan tusaalaha dagaalka ka socdo badaxa tusaalahan waxa loo fareem gareena in yiraahdo waa dagaal u dhaxeeya Ethiopia iyo Kenya Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya lagu leeyahay waa ognahay waa dagaal qabiil u dhaxeeya meel wada dega Jubbaland iyo dawlad federaalka u dhaxeeya madoobe iyo farmaajo haysto u dhaxeeya ninkii farmaajo ahaan Ethiopian wata axmedne wuxuu soo kaashaday Jubbaland Kenyankooda kaysadeen dagaal noocaas ah waxa laga dhigaa wiilashan inay wadaniyihiin kuwaasna ay khaain wadan yihiin narrative kaas la yiraahdaa dadka marka ay nimankan haystaan media-na waa haystaan resource-kiina waa haystaan power-kiina waa haystaan wax kale oo dheeraad haystaan waxay haystaan wax la yiraahdo base ayaga sax ay qalad ku taageersan laakiin annaga taageerayaasheen haddaan saxnaana wayna taageeraan haddaan qaladnahayn waxayna dhahaan maaragtay waa qaldantii wayna qabtaan waxay ugu haystaan marka waxa waaye the power of discourse aniga fahamkayga nin taagan hadlaaya dadka wax u sheegaya daliilahooda fasiraya meesha ay galayaan yaqaana haday maanta narrative soo abuuraan dhahan dagaalkan waa wuxuu u dhaxeeya Soomaaliya uma dhaxeeya Jubbaland iyo federaalka u dhaxeeya haday damca inay dhahan hadda fiiri maalxaasa madaxweynaha wuxuu tagay meesha la Addis Ababa waxaan soo booqdo dhahay sawirkii cadda meel la suray simply aniga waa inaan dhahay buuga cadda waxa ka qorto ma ka noqotay madaxweynaha wuxuu qorayaa oo written ah oo cadda ku qorayaa iyo qabiilkiisa waliba madaxweyne ma ka noqotay marka qabashada la qabanayo nimankan oo qaladaadkooda lagu qabanayo oo historygoodii hore lagu qabanayo oo ficilada ay sameynayaan si ayaga u fasirayaan u naarid gareynayaan sida anaga u fasirayna kala duwan tahay anu waxa haystaa engagement-iga media iyo waliba social media waaye waxa isku haysta waxa sheegtay in sheekooyin la abuuro adiga waliga sheeko ma ka abuurat dawladda may أنا مو بهني بنارتيف ناس أنا I have the power for discourse أنا وأنا أود أن ضدك كل هذا الكرو وحنا وشيء كرو وأنا الحمد لله إلهي مهدي سوى لكن أيجو وحية قانون إلا أبور النارتيف كضدك لقى أبوره قولي هذا الشراء مثلا دعاية مقالة مقدشو أما هذا وكده عدونا بطلة صافيرس هذا شركة بطلة هم كيشين تمام كده جايرو عيان قال صايع عدونا ولقد اللي إمانة أوفيرس وطان لا ضدك مركز سياسيين تاع أما معارضة عدن أما قبل هذا هالجوجاني وإني فهمان dadkaanu sida ay mentality iyo qaabka ay ku shaqeeyaan waa inay fahmaan annaga wada jirtaas xil hore fahanay taas aan nimanka isku challenge gareyna taas aan noo wada taalo taas aan suuqa ku wada joogna